waxyaalahaas kadib eraygii ilaah baa abrahm ugu yimid muuqasho ahaan isagoo leh abrahmow ha baqin anigu waxaan ahay gaashaankaada abaalgudkaaguna aad buu u weynaan doonaa oo abraham wuxuu yidhi sayidow rabbiyow maxaad isiin doontaa waayo anigu carruur la'aan baan sii socdaa reerkaygana waxaa dhaxli doona elicaser oo ah reer dimashaq oo abraham wuxuu yidhi bal eeg aniga ima aad siin farcan oo mid gurigayga ku dhashay waa idhaxlaya oo bal eeg eraygii rabbigaa u yimid isagoo leh ninkanu kuma dhaxli doono laakiinse waxaa ku dhaxli doona wiil aad dhali doontid oo dibadduu u soo bixiyey oo ku yidhi bal samada fiiri oo xiddigaha tiri haddaad tirin kartid oo wuxuu ku yidhi sidaas oo kalea farcankaagu ahaan doonaa oo rabbiga wuu rumaystay ilaahna taas wuxuu ugu tiriyey xaqnimo oo wuxuu ku yidhi isaga anigu waxaan ahay rabbiga kaaga soo kaxeeyey uurtii reer khaldayiin inaan ku siiyo dalkan si aad u dhaxashid oo abraham wuxuu yidhi sayidow rabbiyow maxaan ku ogaadaa inaan dhaxli doono oo wuxuu ku yidhi ii kaxee qaalin lo' ah oo 3 jir ah iyo caasaan 3 jir ah iyo wan 3 jir ah iyo qooley iyo xamaam yar oo wuu u kaxeeyey kuwaas oo dhan oo bartanku ka kala wada gooyey oo badh kastaba kan kaluu hordhigay laakiinse shimbirihii ma uu kala gooyn haad baana hilibkii ku soo degtay laakiinse abraham baa ka eryey oo kolkii qorraxdu sii dhacaysay ayaa hurdo aad u weyn abraham ku soo dhacday oo bal eeg cabsi gudcur weyn leh waa ku soo degtay markaasuu wuxuu yidhi abraham ogow in hubaal farcankaagu ay dad qalaad ku ahaan doonaan dal aan kooda ahayn oo ay u adeegi doonaan oo 400 oo sannadood waa la dhibi doonaa oo weliba quruuntaas ay u adeegi doonaan xukun baan ku ridi doonaa oo dabadeedna way ka soo bixi doonaan iyagoo xoolo badan wata laakiinse adigu nabad baad ugu tegi doontaa awowyaasha oo waxaa lagu xabaali doonaa adigoo cimri dheer gaadhay oo iyagu qarniga 4 halkan bay ku soo noqon doonaan waayo dembigii ree Omar weli ma dhamma oo waxay noqotay markii qorraxdii dhacday oo ay ahayd gudcur in girgire qiiqaya iyo dab ololaya ay dhex mareen caddadkii maalintaas rabbigu abraham buu axdi la dhigtay isagoo leh farcankaagaan siiyey dhulkan oo laga bilaabo webiga masar ilaa webiga weyn oo ah webiga yufraad reer qayn iyo reer qanas iyo reer qadmoon iyo reer xeed iyo reer feris iyo reer rifaa'iim iyo reer amor iyo reer kancaan iyo reer girgaash iyo reer yebuus